bulsho qiimo badan oon lahayn qalad xun weeyaane waa qoys isjecelo wanaag isku qaabiliye qabri bayax allahayo kuwee qadir baa tahaye ururka qabri bayax brothers ama walaalaha qabri bayax ayaa lagu daahfuray magaalada St. Cloud ee gobolka Minnesota ujeedada laga lahaa ururkan ayaa mid lagu horumarinayo dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka waxaa hadalkii furay iyo muhiimadda uu leeyahay ururkan Suldaan Maxamed oo kamid ah salaadiinta ka soo jeeda gobol horta marka hore waxaan rabaa mataqaanaa inaan siiyo mataqaanaa muxuu ahaa hambalyo inaan iraado ururkan dhalinyarada ah ee mataqaanaa iyaga oo mataqaanaa wali wadanka muddo yar oo gaaban jooga isku xilqaamay inay mataqaanaa gacmaha isqabsadaan una noqdaan hormuud shacab weynaha ka soo jeeda dawladda deegaanka Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhalinyarada yar waxay yihiin waa dhalinyar ku dayasho mudan runtii marka laga hadlo waxa weeye qabiil way ka tageen waxa weeye deegaan way ka tageen dadkana waxa weeye waa dad ku bahoobay wada dhalasho deegaan iyo mataqaanaa waatinimo Soomaalnimo Itoobiyaanimo waa dhalinyar ku bahoobay intaas waxaan leeyahay waa dhalinyar ku dayasho mudan dhammaanteen waxay naga mudan yihiin inay hal mar dalma igu sacbisaan Wanadin Solamia, Cabribia Brothers. Maga Egawa Katie, iyo Wanka Humahai, Wahan Kahadla, and Somaliyar. waxaan halkan mar labaad ka salaamayaa dhammaan ururka dhalinyarada KB Brothers oo ay ka go'an tahay inay banaan ka noqdaan haday noqoto qabiil ama siyaasad marka waxaan halkan u sheegayaa dadkan ka soo qayb galay inaan nahay dhalinyar ku midowday walaaltinimo ay rabaana inay wax hal mar wada qabsadaan marka sidaa waxaan dadkan u sheegayaa inaan anagu nahay dad hal meel ka wada yimid hal meel wax ku soo wada bartay dadkii ay ka yimaadeen iyo dadkii kaleba inay wax u qabtaan ramaan dhammaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waa dhalinyaro marka aad aragtid oo qalbigaagu ku diirsanayo tusaale ahaan haddii nin ka mida uu aroos galo dhammaantood meel kasta ay joogaan fasax bay isu soo qaataan taakule isa siiyaan way soo wada labistaan way isgarab istaagaan moorarka u dhisaan ninka arooska waa arrin aad iyo aad u qiimo badan waxa kale oo aanu soo taagnaa iyaga oo ka tashanaya raggii dhalinyaradii kubadda la ciyaaraysay ee kaga soo tageen qabri bayax sidii ay macnaha nin kasta sida loo kala daran yahay ay u taakulayn laayeen waqtiyada ciidda iyo waqtiyada uu ninku u baahan yahay kaalmada annagu haddii aan nahay dadweynaha hooyooyinka odayaasha abayaasha waan idin garab taaganahay maadaama oo qabyaalad iyo qurun ka madax bannaan tihiin oo diskin soo urursateen wiilkan baan idin leenahay soo dhaweynaynaa dhammaantiin wiilkan qabri bayax waxa aad noqoteen xeradii ugu horeysay ee qaxootiga ee soo degta Central Minnesota oo soo degta iyadoo isku xidhan kana fakaraysa mustaqbalka xerooyinka ay ka yimaadeen waxa aan jeclaystay in aan caawa idinku booriyo idinkuguna mahadceliyo idinkana mid noqdo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز روحان مهد قالي يوسف جيدني أما تشرفت رجل دمر سكوت شرت حفلة قالي كسوق بشعاوة تاسون عاوة نقوده فرنو أورك الرجال كيبي برادرس كاس أو عرقلات فربنا صومري ما أنتنا الحمد لله قوان كين يمعني أو هيك سجى عن ربنا أو جاري سوق كله واحد أمها نقيا مدحونها دولة دجاج الصومالية هي حكومته هو جامنيو سوق كله واحد آدي الشرف قالي نجمدن dadka safarka noo soo maray Minneapolis iyo St. Cloud asxaabaha qaaliga sidoo kale oo hogaaminayo mudane Suldaan Maxamed Badi iyo martida kale ururka dhalinyarada sidoo aad ma siihiin Roble gudoomiyaha xisbiga mudane Ibrahim idnimada dhalinyarada waxaan u tirinayaa ilaahow daayin diinkaaga ku xijaab ilaahow daayin askartaada ku difaac ilaahow guul la galadaada ugu baaq waa u duceeyay inama yaryar oo wada wadaniya oo aad iskugu
isku wada meel ka wada halgamaya